wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa kormeer ku tagay dugsiga Sheekh Moolde ee boardingka kaasi oo dhismihiisu gabagaba ku dhow yahay ugu horreyn bulshada ku nool deegaanka Sheekh Moolde ayaa wasiirka uga mahad celiyay dugsigan hoyga ah ee looga dhisay deegaankooda waa dugsi moodala dugsi casri ah oo ay wasaaradda waxbarashadu sidii runtiina ahayd ikhtiraacii wasiirka waxbarashada in halka laga dhigo dugsi hoy ah 720 iskuul oo ay degmadu leedahay ayaa ku xiran oo dhamaantood wada ah hoose dhexe waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada oo maanta wasiirkeedii nagala joogaan annagoo ah tuulada Sheekh Moolde oo ay ka hirgeliyeen dugsi weyn oo boodhana oo gacanta sidoo sheegay shirkadii ku haysay ay intii ugu badneed dhamaatay inta dambena sugayna insha Allah in ay dhameystiraan alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh waxaan aad iyo aad lama ilaawana muddo imika kooban oo la 8 bilood ka horeeyeen dhulka aad arkaysan maanta gurigaan ku jeedinana waxa ay banaan aan waxba ka dhisnay macallimiintu guud ahaan kulli gobolka iyo inaga warhayaan oo bilaa mushaar dhamaantood macallimiintu dhamaantood bilaa mushaar waxa gacanta ku haya deegaanka marka waxa yar ardayga laga qaado gaari waayo waxa la soo diyaariyaa ama sala isku xukuma in calaaba qof wax u dhigtay qof aan u dhiganba adduun laga soo qaado kayla siirigo marka aniga iyo waashma ku ka gunaysanba ama ka mushaaraysan laba qof oo kaliya ayaa wax qori jiray inkan gudoomiyaha ah iyo nalaw xasan Umar cilmi loo dhan jiray Allah yarxam ayaa wax qori jiray oo dumarku markay doonayaan inay magaalada wax u dirtaan kuyuu loo gali jiray oo u qori jiray waxay u baahan yihiin intaanay 6 bilood gaadhin guri walba caruurta intii dugsiga la keenay waxa dhacday in akhriska iyo qoraalkiiba laga maarmay gudoomiyaha shirkadda dhisay dugsigan hoyga ah ayaa isaguna ka warbixiyay tayada dugsigan iyo qaybaha uu ka kala duwan yahay annagu waa shirkadii dhisay iskuulkan waxaan ka warbixinaynaa shaqadu soo socoto inta dhamaatay inta hadhay marka waxa dhamaaday 12 hurdo ah oo inamada ah iyo kijadii ay wax ku cunayeen hablaha iyo inamadu iyo adminkii xafiisyadii qaybtan waa kijadii halkii raashinka laga qaybinayay stoorkii waa kan meeshii wax lagu karinayay waa tan halkii raashinka laga dhiibayana waa tan xagga shishana waa hablihii qaybtani waa qaybtii hablaha oo 4 maqsina oo waaweyn ah way gudihiiba ku dhamaanaya hadii ilaahay yiraahdo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno oo munaasabadan ka hadlay ayaa faahfaahiyay in dhammaan gobolada dalka laga hirgelin doono goobo la mid ah kuwan oo kale qorshaha wasaaraddu wuxuu ahaa degmooyinkeena oo 101 ah 3 degmo doorasho iyo 78 degmooyinka dhiida la yiraahdo in siday u kala dad badan yihiin aynu boodhana uga dhisno marka waxa inoo qorshaysnaa 10 boodhana ama iskuulo hooya inaynu dhulkeena miyiga ka dhisno 5 sanadood marka deekan mid ka mid u noqon doona waxa dhisnaa oo uu dugsigan ka koobnaa 3 fasal markii hore imikana 3 kala baynu ku dareynaa laakiin Soomaaliland oo dhan buu iskuulkan u furan yahay Axmed Maxamed Diiriye Toorno wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxa uu guud ahaan fariin u diray bulshooyinka reer Soomaaliland taasi oo fariintiisu ku aadanayd in goobaha danta guud la ilaaliyo marka aan fursad ka faa'iideysanay waxaan leeyahay reer Soomaaliland danta guud aynu wada ilaalino hadii dan guud la waayo waxba jiri maayaan reer Soomaaliland saasaan leeyahay aynu danta guud wada yeeshaan dhul iyo dhisme iyo hanti kii ay noqotaba